بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته soo dhawaada isu soo noqod wanaagsan halkani waa macal abqari youtube channel aniguna waa Ustad Abdullah Maxamed Samatar Ustad Abqari maanta waxaan idin wadaa kooraskii buugtii inoo socotay 4000 essential English words ka ahaa aynu ka wadnay macal abqari youtube channel aan ka bixinaynay marka buuguna waa buugii koowaad unitkuna waa unitkii 19aad soo dhawaada intaa kadib insha Allah waxaynu intaan u galin casharka iyo dhageysigiisa iyo sharaxaadiisa soo dhawaada dadkii horay noola socday oo noogu tixnaa aad u mahadsan yihiin bulshada nagu cusub ee kale danaynaysay awalba barashada luuqada Englishka sidoo kale waa soo dhaweynaynaa fadlan si aad u heshaan casharada joogtada ee ka baxa macal abqari youtube channel fadlan isku day inaad laagta iyo shaata iyo maaragtay tiimka nala jooga ee ku dadaalan si bulshada kale u gaarto cid cusubna waa inaad subscribe garaysaa kambalelkana furata si casharo joogto aad u hesho insha Allah waxaynu u gali doonaa sharaxaada balse intaan sharaxaada u galin sida caadiga ahayd aynu dhageysan insha Allah. Unit 19. Word list. Alive. If someone or something is alive, they are not dead. My grandparents are still alive, even though they are over 90. Bone. A bone is a hard part of the body. I brought home a nice bone for my dog. Bother. To bother is to make the effort to do something. No one bothered to wash the dishes today. Captain. A captain is the person who leads a ship or airplane. The captain sailed his ship to Australia. Conclusion. The conclusion of something is the final part of it. At the conclusion of the race, the spectators cheered for the winner. Doubt. Doubt is a feeling of not being sure. I have doubt that the story is true. Explore. To explore is to look for new places. He wants to explore the world and see new things. Foreign. If something is foreign, it is from a different country. Mexican food is a popular foreign food. Glad. If you are glad, you are happy. I am glad you came to my party. However. However means despite or not being influenced by something. She is a great cook. However, she never had professional lessons. Injustice. Injustice is a lack of fairness or justice. Putting an innocent person in jail is an act of injustice. International. If something is international, it involves more than one country. The United Nations is a powerful international organization. Lawyer. A lawyer works with the law and represents people in court. The lawyer left the courthouse after the judge made her decision. Mention. To mention something is to talk about it. The doctors mentioned the problems that the patient was having. Policy. A policy is a rule. He told us that his policy was to put customers first. Social. If something is social, it is about many people in a community. People should come together and fix the world's social problems. Speech. A speech is something said to a group of people. She gave a speech to the class. Staff. A staff is a group of people working together in a company. My dad has a staff of 4 people to help him at the office. Toward.
If you go toward something, you go closer to it. Santa walked toward my house with a special tree. Wood. Wood is the thing that trees are made of. I put the pieces of wood in a pile. intaa waxaa inoogu dhan dhegaysashada insha allah inoo sharaxno marka. Okay, unitka 19aad waxaynu sharaxaynaa 20ka eray ee loo yaqaano target wordska oo buugu yaqaano, balse erayo fara badan ka duwan ayaa jira aad ku baranayso ee ku jira buuga, balse targetka wuxuu ka dhigayaa unit kasta 20 eray. haddaba cidii danaynaysa 6da buuggan wuxuu ka kooban yahay 6 buug. buug kastana wuxuu lagu baranayaa 600 oo eray. cidii danaynaysa 6da buug oo tixaan oo macal fiidiyadooda waxoodu diyaarsan yihiin waxaad ka heli kartaa, waan kugu haynaa Abqari Online Academy. cidii danaynaysana WhatsApp-keena iyo contacts-keena ayuu nagala soo xiriiri karaa. waxaad heli kartaa koorsooyin kala duwan oo bilow, dhexdhexaad iyo dhamaystir leh oo luuqada Englishka qaybaheeda kala duwan. kusoo dhawow Macallin Abqari YouTube channel. haddaad nagu hore noola socotayna waad mahadsan tahay, haddaad nagu cusub tahayna kusoo biir si aad cashiro joogta u hesho si free ah. aad u mahadsan tahay. ereyga ugu horeeya waa alive. alive macnaheedu waa nool. ereyga alive waa nool. 8 bar speech ahaanna waa grammarkiisa wuxuu noqonayaa adj, waxaa lagala jeeda adjective. Okay, if someone or something is alive, haddii qofi or something ama wax is alive ay nooshahay ama uu nool yahay, they are not dead, macnaha ma aysan dhimanin. marka alive waa nool. My grandparents, waalidiintay, awoowe iyo ayeeyo lagala jeedaa, are still alive, welina way nool yihiin. even though inkastoo they are over 90, inkastoo ay 90 da'dooda ay ka sarreyso labadooduba, haddana weli way nool yihiin. alive waa nool. ereyga xiga born waa laf. ereyga n ayaana meesha ka muuqda, waxaa laga soo gaabshay noun. enta waxay u taagan tahay noun. Okay, a bone waa laf. is a hard part waa qayb adag of the body ee jirka ka mid ah. qayb adag ee jirka ka mid ah ayaa loo yaqaanaa bone. I brought home a nice bone for my dog. waxaan gurigayga u keenay laf wanaagsan eygayga. laf ayaan u keenay gurigayga eyga. I brought waxay ka timid bring, home gurigii waaye, a nice bone laf wanaagsan for my dog eygayga ayaan laf wanaagsan u keenay. bother waa isdhibid waaye, ama qof inaad dhibto ama iskalifid waxa loo yaqaano. to bother inaad isdhibto ama qof dhibto is to make the efforts, waa inaad samaysa dadaal, to do something aad wax ku samaynayso. iskalifid ama isdhibid. nobody waa cidna ama no one ay idhaahdo waa qofna ama cidna. bother iskuma aysan kalifin waayo. to wash inay dhaqdo the dishes saxamuunta today maanta. macnaa saxamadii alaabtii waa wasaq, qof isku kalifay ama isku dhibay maba jiro inuu dhaqo macnaha. nobody waa no one waa qofna. bothered to wash iskuma uusan dhibin ama iskuma kalifin to wash the dish inuu saxamada dhaqo today. captain waa kabtan, waa darawalka, kabtanka diyaaradda ama markabka, ama kabtanka kooxaha tiimka ama ciyaartoyda ayaa loo isticmaali karaa. a captain is a person waa shakhsi who leads kaasoo hogaamiya, horseeda, macnaha kaxeeya ama hogaamiya ship ama aeroplane. qofka kaxeeya ama diyaarad ama maxay ahayto maxaa la lahayay markab ayaa la yidhahdaa, ama kooxda kabtankeeda ciyaartoyda. the captain waa kabtanku sailed wuxuu ka shiraacday his ship, wuxuu kaxeeyey his ship to Australia, wuxuu u shiraacday
markabkiisii u waday Australia. Sail waa shiraacasho inaad ka furato deked aad dhaqaaqdo markab adigoo wada la yiraahdaa. Captain waa kabtankii. Ereyga xiga waa conclusion waa gabagabo. The conclusion of something gabagabada wax is the final part of it waa qaybta ugu dambeysay waxayna gabagaba yihiin. The conclusion of the race gabagabada tartanka. The spectators waa daawadayaashii cheered for the winner ayaa u sacbiyey. Cheered farxad inaad kusoo dhaweyso sacbisaa la yidhahdaa. Cheered for the winner guuleystihii ayay sacab kusoo dhaweeyeen daawadayaashii markay ciyaartii dhamaatay racekii dhamaaday. Dot waa shaki. Dot is a feeling waa dareen of not being sure oo ah inaadan wax hubin. Dareen ah a feeling of not being sure. Dareen ah inaadan wax hubin. I have a dot. Waxaan qabaa shaki that the history is true oo ah in sheekadu inay run tahay. That the history is true. Macnaha shaki waxaan qabaa ah in sheekadu ay run tahay. Explore maxaa la yidhaahdaa marka? Explore waa sahmin waay ama raadin. Explore is to look for new places waa inaad raadiso goobo cusub ayaa waxa loo yaqaan explore. He wants wuxuu doonayaa to explore the world and see new things. Wuxuu doonayaa inuu sahmiyo dunida and see new things arkana maxaa la yidhi waxyaabo fara badan waxyaabo cusub aan yidhaahdee. Foreign waa ajnabi ah la xiriira dal kale. If something is foreign haddii wax foreign yihiin it's from a different country. Waxaas waxay ka yimaadeen dalka markaas aad deganta ama u dhalatay dal aan ahayn. Mexican food cuntada Mexicanka is a popular foreign food. Waa cunto caan ah oo foreign food waaye. Cunto dal kale laga leeyahay ama dad kale oo dal kale u dhashay ay kariyaan ama diyaariyaan. Marka Mexican food is a popular waa caana. Famous oo kale waaye foreign food. Glad waa faraxsan waaye. Waa happy. If you are glad haddaad faraxsan tahay you are happy waad faraxsan tahay. Glad iyo happy waa isku mid. I'm glad waan ku faraxsanahay you came to my part. Waan ku farxay inaad timid waan ku faraxsanahay inaad timid xafladayda. However waa si kastaba ama hase yeesheena way noqonaysaa. However si kastaba means macnaheedu waxay noqonaysaa despite iyadoo ay jirto ama not being influenced by something else inaysan wax kale adig ku saameynin. She's a great cook. Iyadu waa maxay? Waa cook qofka wax kariyaa la yidhaahdaa. Waa kariye wanaagsan. However si kastaba she never had professional lessons. Haddana maxaa la yidhi weligeed may soo qaadanin casharo cunto karin oo professional ah caalami ah. Qof cashima haddana waa qof aad wax u kariyo aad wanaagsan waa. Injustice waa cadaalad darro. Injustice waa cadaalad darro. Injustice waa cadaalad darro. Injustice is a lack of fairness and justice. Fairness waa cadaalad darro and justice waa cadaalad. Marka waa la'aan. Lack of haddaad maqashana waa without waa. Injustice cadaalad darridu is lack of fairness waa cadaalad la'aan ama justice. Putting an innocent person in la dhiga jailka. Putting an innocent person in jail. Qof aan dembi lahayn in xabsiga la dhigo is an act of injustice waa fal cadaalad darra. Act of waa fal injustice cadaalad darra. Putting an innocent person. Ereyga innocent waa dembi aan lahayn. In shakhsi aan dembi lahayn in jailka la dhigo is an act of injustice waa fal maxay ahayd cadaalad darra. International waa caalami ah. National waa qarameed laakiin international. If something is international hadday wax international yihiin it involves waxaa ku jira more than one country hal dal ka badan caalami. United Nations qaramada midoobay is a powerful international organization. Waa hay-ad caalami ah oo awood badan leh. Halka nagala socotaana waa Ustad Abqari YouTube fadlan ku soo biira
oo had iyo jeer waxaad ka baran kartaan qaybaha kala duwan ee luuqadda Englishka. Intaa kadib ereygan waa lawyer, waa qareen. A lawyer works with the law. Wuxuu ku shaqeeyaa sharciga and represents, wuxuuna ku matalaa the people in the court. Maxkamadda ayuu dadku ku matalaa qareenku. The lawyer qareenku left the courthouse, wuxuu ka tegay dhismaha maxkamadda after the judge, kadib markii xaakimku made her decision, waa dumar macnaa dhadig waaye, ay go-aankeeda gaartay ayuu isaga tegay. Meeshan waa xusid waaye, adoon ku dheeraanayn ama faallo badan ka bixinaynin wax inaad wax ka sheegto shay ama wax. To mention inaad wax xusto, to mention something inaad wax sheegto is to talk about it, oo inaad ka hadasho. The doctors, dhakhaatiirtu, mentioned the problems, waxay xuseen dhibaatooyinka that the patient was having. Dhibaatooyinka bukaanka haystay ama dhibka uu qabay ama xanuunada qabay ayay wax ka sheegeen. Policy waa siyaasad. A policy is a rule, waa xukun. He told us, wuxuu inoo sheegay inaga, that his policy, in siyaasadiisu, was to put customers first, inay ahayd macaamiisha in kow laga dhigo, macnaha mudnaanta la siiyo macaamiisha lagala jeedaa. Social waa bulsho. If something is social, hadday wax social yihiin, it's about the many people, waxay ku saabsanta dad fara badan, or in a community ama bulsho. People should come together, dadku waa inay isu yimaadaan, and fix ayna xaliyaan the world's social problems, dhibaatooyinka bulsho ee dunida ka jira, inay xaliyaan, dadkuna waa inay isu yimaadaan. Speech waa khudbad. Speech is something said to a group of people, waa wax ay dad kooxdada ay yidhaahdaan. She gave a speech to the class. Classka ayay u khudbaysay iyadu. She gave a speech to the class. Staff waa shaqaale. Staff is a group of people, waa koox dad ah, working together ee wada shaqaynaya in a company gudihiis. My dad, aabahay, has a staff of 4 people. Aabay wuxuu leeyahay shaqaale 4 qofooda, to help him in a office, ee ku caawisa xafiiska gudihiisa, macnaha shaqaale hoosaad oo xafiis kala shaqeeya ayuu leeyahay 4 qofooda. If you go toward, ereyga toward waa dhanka. If you go toward something, that wax dhinaceeda aado ama shay, you go to closer to it, waxay u sii dhowaanaysaa. Come close. Toward waa dhanka macnaha. Santa walked toward my house. Santa waa nin dhar soo gashta, la arko inta badan maxay ahayd xilliyada oo sanadka Christmaskooda gaalada. Walked toward my house, wuxuu soo aaday dhanka gurigayga, with special tree, ayuu isagoo geed qaasa wada. Ereyga xiga una dambeeya waa wood, alwaax, is the thing that trees are made of, waxyaabaha geedaha laga sameeyo waa alwaax. I put pieces of wood, waxaan dhigay dhowr gabal oo alwaaxa in a pile. Pile waa raso, ayaan rasay dhowr qaybood ama dhowr gabal oo alwaaxa ama geedaha la jarjaray ah ayaan raseeyay. Ereyga pile waa raso, putna waa dhigay pieces of wood in a pile, waan raseeyay. Haddaba intaa waxaa inoogu dhan unitkii 4000 Essential English Wordska buugga ahaa, unitkii 19aad. halkana waa Macal Abqari YouTube channel. Fadlan waxaan idinka codsanaynaa si ay inoo dhiirigelisaan ama inoogu noqoto dhiirigelin inaad shareta iyo like-ta iyo subscribe-taba noogu dadaashaan, si bulsho fara badan ay u gaaraan cashiradan ugana faa'iidaystaan. aad baad mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.